باقي نقنيان فيقول تعالى ليس على الأعمى حرج كي إن دلاوها هدوشي سدن بمسارة ولا على الأعرج حرج كي لانقرها ها أما لتنيي دن بمسارة ولا على المريض حرج كي بكانك ها دوشي سدن بمسارة ولا على أنفسكم قودهانتين الدن به إذن كمسارة أن تأكلوا من بيوتكم إلى قريهين آلادهين وحكا عنتان أو بيوت آبائكم أما قريها أبياشين ليهين أو حكا عنتان أو بيوت أمهاتكم أما هو يمكن قريه إنا وحكا عنتان أو بيوت إخوانكم كوا ولا لها تين رقعة قريه إنا وحكا عنتان تنبيذين كمسارة أو بيوت أخواتكم أما هبلها أو ولا لها تين قريه أو بيوت أعمامكم أديرهدين كوريغودا إنا وحكا عنتان دنبيدي كما سارة أو بيوت عماتكم أما قريها إدوينكين أو بيوت أخوالكم أما قريها أبتياشي أو بيوت خالاتكم أما قريها هبريريهين أو أما ما ملكتم مفاتيحه قريغا فريه سكعنتا كودكتين إذنكم ملكيدين مسؤولك كاتين إنا وحكا عنتان إنا وحكو عنتان دنبيدي كما سارة أو صديقكم أما قرق ساحيبك ليس عليكم جناح مركلة وحوليسي عريري الدنبي هو إذن كساني مجيرو ضدي هو أن تأكلوا إنا عنتان جميعا إذن كوذا جره أو أشتاتا أما كلا تكسن وقف بقار كيسا وعنا تاسي بالبالي فإذا دخلتم بيوتا وحال إذي شيء يقولك قرية قشان فسلموا على أنفسكم نفيهنا السلامة إسا السلامة تحية سلاني سوق قديمة من عند الله إلهي أكتي سكاها تور ربي دين جديي مباركة بركة بضن طيبة وناكسا وقبني ما يشرف له كذلك سلا أصاء أركتين يبين الله لكم الآيات إلهي آياته إذن كصافة يا إذن كعال عضيني لعلكم تعقلون لكي تعقلون وحل سوق يا إذن كإيجا إن عقلي يا لتانا وحكرتانا عقلي علمي إسلا أخردان سيا أمي رقبتان ما شاء الله صور وادي كلين واركتين آيادان وحلوسو جبجبيي لعلكم تعقلون يا وهذا عقل لهذه واي اوكي dad badan waxaa maqlaysaa ku dhahaya quraanku waa hadalka ilaahay waa hadal cajiib ah oo ilaahay ka yimid oo murti leh oo balaaqa leh yaa lagu leeyahay bal hadda aayadan la soo dajiyay ee lagu leeyahay inaad cuntaan wax dambi ama laha cunto qof inuu cuno oo gurigiisa ka cuno oo guriga hooyadiis ka cuno oo guriga aabihiis ka cuno guriga walaashiis cunto ka cuno goormay dambi noqotay dadkan maxaa si ka ah walaalayaal cunto la cuno goormay dambi ahayd oo berigii hore inaad gurigeyga aan furaha haysto ama guriga saaxiibkay ama guriga hooyaday inaan cunto ka cuno ma dambi ba ahayd waxaasa lagu leeyahay hadda marka waa hadal ilaahay muslimiintu maxay ilaahay u gafeen maxay ilaahay ka soo qaadeen wax doqona inuu yahay waxaan hadda ninkan uu ku hadlay ee lagu leeyahay ninka indhoolaha ah iyo ninka xanuunsan iyo ninka jiiska ah inay cunto cunaan dambi ma laha war cunto la cuno goormay dambi noqotay yab oo hadda guriga la soo tiriyay waxa la yiri guriga hooyada guriga aabaha guriga habaryarta guriga walaasha waa lagu yiri guriga kale ka waran ya ayayday gurigeed hadaan taga ka waran cunto kama cuni kara miya maxay tahay waxan hadda waa ka sii dartay aayadii ya aayad way ka sii dartay waxa lagu leeyahay ya u cuna jamiican adinku isku jira cuna ama kali u cuna maxaa hadda qof bin aadan aad maxaa looga sheegayaa qof bin aadan nool ilmaha markay saa u dhashaan ba way qayliyaan kaale cunto cun qof la yiraahdo ma jirtaba waa wax lagu dhasho weeyaan cuntada marka ilaahay fariintii u dambeysay intuu wax fiican noo sheegi lahaa na anfaca war gacmaha iska dhaqa war biyaha kullaysta war daaweyn qaata wax wanaagsan oo na anfaca intuu noo sheegi lahaa miyuu maanta na yiri
yaa cunto inaa cuntaan dhib ma laha. wuu kasii darta aayaddii haddana waxay ku leedahay guryaha markaad gelaysaan isa salaama. de garan maayo aniga dadka waxaan loo sheegaya dad waalwaalan baa wax loo sheegayaa baan u malaynayaa. hadda gurigayga markaan galo furaha furo ma inaan is salaama salaamu calaykum salaamu calaykum inuu aniga nafteeda xataa waxaa leeyahay guri markaad gelaysaan naftiina salaama. waa inaad maanta dhan isla hadasho salaamu calaykum salaamu calaykum salaamu calaykum. bahashan hadde waxaan u malaynayaa qof waalan baa keenay. dad waalwaalanna waa loogu talagalay bahashan yaa nala waale annaga. qur-aankan dadka waalwaalan inay cunto cuni yaqaanaan yah in loo sheego u baahan, inay isa salaamaan u baahan, inay cunto cunaan meelihii ay ka cuni lahaayeen. daddee jiran baa waxaan loogu talagalay naga daaya. wax kasta waxaa iiga daran aayadda wax lagu soo gebagabeeyey waxaa lagu leeyahay lacallakum tacqiluun aa lagu leeyahay. meesha maxaa caqli oo yaalla hadda la sheegay, maxaa cilmi oo hadda la sheegay. waxaasaa maanta dhan lagu soo noqonaa. haddana see u dheerta ayadan aayadda laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alcaraji xarajun walaa cala khasaarahaas bal xifdinaya fiiri ay nagu kalifeen inaan xifdino annagoo yaryar maskaxdeena nooga ciyaareen. markaan yareen waxaan lama ogeyn wuxuu yahay iska xifdin jirna un waa ku subcin jirnay laalakum tacqiluuna aan iska dhigi jirnay. wax ay tahay iyo meelay ka socoto iyo meelay u socoto oo keliya markaad macnaha dhagaysato waad ku qoslaysaa. waxaa leedahay waxaan ma dad waalan baa loogu talagalay. marka saaxiib libaax maanta waad qaan gaadhay. ilmihii yaraa ee looxa lagu garaaci jiray ma tihid. libax maanta fakir baan ku leeyahay. qur-aanka bal dhegayso soomaaliga marka lagu fasiray intaad dhegaysato waxani ma yahay wax caqli gala, wax macno sameynaya ma yahay. waxaan hadduu yahay wax dadka waalan loogu talagalay iska tuur dee.